It's time to test your English. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkayga waan isalaamay. Maanta waxaan ii soo diyaariyay imtixaan heer sare ah oo ku ogaani kartid heerka af Ingiriisiga hadda aad tahay. Intaa waxaa dheer waxaan sharxi doonaa qodobada naxwiga ee su'aalayaasha wataan, grammarka iyo ereyada su'aal kasta si aad wax badan ka baratid imtixaankan. waa 40 su'aaladood iyo 10kii su'aalba waa heer 10kii su'aaladood hadaad garatid 8 mise 7 su'aal jawaabtooda oo sax noqdaan yani ada heerkaas waa taqaanaa heerka kalena waa isla fiirin doonaa. Testigan markaa dhammaysin videoga dhammaadkiisa please commentka waxa ii soo qorteen heerka aad tihiin ila wadaaga heerkiina heerka af Ingiriisiga B1 B2 mise A1 baa tihiin A2 ma tihiin waraba inaan ogaado. Okay, haddaan bilowno su'aasha koobaad. Su'aal kastaba waxaan siinayaa 10 saniyo. 10kaas saniyo ku xiliya. So hadda aan videogeena bilowno. Isdiyaariya, diyaar ma tihiin imtixaanka? Okay, let's go. Okay, su'aasha jawaabteeda waxaa waa gets up. Gets up, my sister gets up at 7 o'clock. My sister, her waaye, so herna waxaa la socota markasta s. So gets up. يعني ficilka waxaa la raaciyaa s. So gets up waaye jawaabta. su'aashan jawaabteeda waxaa waaye is. يعني Tom waa qof, hal qof waaye, waxaa raaca is. Tom is English. wuxuu yahay Ingiriis, qof Ingiriisi waaye. magaciisana waa Tom is English. is English ee raacdaa. su'aashan jawaabteeda waxaa waa watch. watch يعني daawasho. I didn't watch TV last night. يعني أني حالة تلفزيون ما داون إلى معناتها الجملة ده. So didn't مكان استعماله فعلك حالة دي سكوبة اللو استعماله. So watch وايد جوابته. I didn't watch TV last night. is leaving وايد جوابته. Look, the bus is leaving. Look يعني أرق بسكة وحركونية وسعونية وبحية إلى معناتها جملة ده. So is leaving اللو استعماله. lookنا وحاوى يعني أرق يعني هذا وحها ممكن كان لسد look أديسة. So the bus is leaving. is leaving وايد جوابتنا. جوابته وحاوى does. Does she know how to cook? She, he, it وحراعة does. does نوحا لو استعمال انت ugu badan ما كان لغا هلاي وقتيga يعني simple present لا استعمالها. does she like coffee? Does he play football? Does it work? does وايد جوابته. جوابته how he didn't go to school yesterday. أصلاً شلة سكول كما آدين إلى معناتها هاي الجملة ده. So didn't كان استعماله فعلك وحال استعماله حال دي سكوبات go ولا استعماله. does معها does نحلها simple present اللي استعماله يعني وقتك حاضر كان لو استعماله بسيط كا. So وحاواي جوابته وحاواي didn't. جوابته وحاواي at. The student was bad at geography. يعني أرضك وحكوحما درسيga جغرافيga وكحما إلى معناتها الجملة ده. So bad at good at لو استعمال ما كانت ربطينها ترحديد وحاس قفكاس وحاس كوفيعية وحاس كوحية هاي وحاس استعمال كارتا at. So bad at good at he is good at وحكوفيعية شيء كارتا.
he is good at math يعني رياضيات كوفي عنها إلى ما نتهاي so bad at good at اللو استعمالها. جاوبت وحاواي we saw Jamie in town a few days ago يعني جيمي أرقني مالما كهر أو ير مالما كهر أرقني إلى ما نتهاي so سي حال كذا لبعض يعني ماضي كذا وحاواي so الله استعماله. سؤالشان هذا تقرن ويدي waxaad u baahan tahay inaad baratid tenses يعني ficilyaasha verbiga xaaladooda koobaad xaaladooda labaad iyo xaaladooda saddexaad jirta xaaladayaasha inaad baratida u baahan tahay. jawaabta waxaa waay at iyo on so saacadayaasha waxaa loo isticmaalaa at 6 p.m. on Tuesday maalmayaashana waxaa loo isticmaalaa on. haddaad su-aashan garan weyday qalad ay noqoto jawaabtaada waxaad u baahantay inaad baratid in on at iyo waqtiyaasha la isticmaalo. su-aasha jawaabteeda waxaa waay much haddaad many ku jawaabto waa qalad. many waxaa loo isticmaala waxyaasha oo la xisaabin karo lacagta oo la xisaabin karaa waxyaasha oo la xisaabin karo many loo isticmaalaa laakiin much waxyaasha oo la xisaabina loo isticmaalaa so water biyaha wax oo la xisaabin karo ma aha so much waaye jawaabta. haddaad su-aashaan qalad ku jawaabtay waxaad u baahantay inaad soo raajaceyso much many a few a lot kuwaas inaad soo baratada u baahan tahay. jawaabta waxaa waay booked يعني aniga waxaan xajistay dayaarad baan xajistay marka rabtid inaad tiraahdo online booked isticmaalaysaa so xajiska booked waaye jawaabta booked. haddaan jawaabtan garan weydo waxaa u baahantay inaad vocabulary-gaaga badsatid. jawaabta waxaa waay bigger than her car is bigger than his car. more big qalad waaye عشان waa xarfi waaxid waa ku jira oo xalda xarfiyaasha waaxidka la dhahaa oo kowda ah so car مثل xarfiyaasha haday badnaan lahayd yani waxaa isticmaali karnaa more laakiin xarfiyaasheeda way yartahay oo hal xarfi waaye oo a waaye so waxaa isticmaalaynaa bigger adhaheena يعني gaarigeeda ka weyn gaarigiisa ayna macnaha jumlada bigger than. jawaabta waxaa waay having we enjoy like hate eryaashaas oo kaleta ficilka waxaa lagu daraa ing have waxaa lagu daraa ing so having why we enjoy having مثلا waxaa dhihi kartaa I enjoy dancing I enjoy eating so enjoy like hate inta ugu badan waxaa lagu daraa xarfi yani ficilka waxaa lagu daraa ing. jawaabta waxaa waay since last April so يعني waqti waaxid laga hadlayo oo mucayana oo since loo isticmaalo inta ugu badan since for يعني waxaa loo isticmaalaa for 3 years to 4 years marka rabtid inaad tirahdid for until waxaa waay ilaa waqtiga marka rabtid inaad tirahdid laakiin anaka hadda waxaan ka hadlaynaa wax oo zaman oo maadi ah so waxaan isticmaalanaa since. يعني ereyga since wuxuu la macno yahay tani iyo waxaa lagu tilmaamaa marka rabtid waqtiga oo gaarka inaad isticmaashid oo bilowga ah
oo wuxuu qeexinayaa xaaladda socotay waqtigaas ilaa hadda. maadaama jumladan lagu dhex sheegay lagu adeegsaday sababta ay tahayna waxaa waaye April ka lasoo dhaafay, last April aa la yiri. So last April waxaa waaye waqti oo muxadada oo gaar ah. So waqti oo gaar ah oo muxadada waxaa loo isticmaalaa since. For-na waxaa loo isticmaalaa waqtiga oo muddada ah. Masala waxaa rabta inaad tirahdid muddo 2 sano ah, muddo 3 maalin ah, mise muddo dheer ah. Markaa rabtid inaad isticmaashid jumlada ku isticmaashid for-a isticmaalaysa. So for muddayaasha loo isticmaalaa, since-na waxaa loo isticmaalaa waqtiga oo muxadadka oo gaarka ah. سؤاشان جوابتها waxaa well يعني if clause yaasha waay سؤاشان laga keenay. if مثلا I wake up early hadaan waqti hore soo kaco waxaas raba inaan sameeyo. markaa rabtid inaad tiraahdo yani if markaa rabtid jumlada inaad ku bilowdid waxaa isticmaalaysaa present simple. hadoo kadib waxaa ku daraysaa well. If I pass the exam, I will be happy. مثلا هذا امتحانك دافو happy بان نقول دونا. So present simple iyo will aloo استعماله if clause yaasha waay. So جوابتنا هذا قرن ويدو حق بهانتا inaad baratid if clause yaasha inaad soo baratid oo soo stashgaraysid. جوابته waxaa waay went iyo has been. So last year edhaysa جوابته waxaa waay went يعني simple past يعني past waaye went loo isticmaalaa. That means that she has been to Paris 4 times يعني intaas ka hor ayada way aaday waxaa loo isticmaalayaa has been. hadaad su-aashan qalad ku jawaabtay waxaad u baahantay inaad soo raajiceyso tenseyaasha. جوابته waxaa waay had. I wish I had more time for hobbies these days. For hobbies these days يعني I wish waxaan tamaneynayaa wish inta ugu badan waxaa loo isticmaalaa had loo isticmaalaa. I wish I had iyo waxaa rabtida sheegaysa waxaan tamanaya waxaas mise waxaas inaan helo had isticmaalaysa. So I wish inta ugu badan waxaa raacda had. Okay, سؤاشان جوابتها waxaa waay see the letters are written by her. The letters are written by her. waxaa la weydiiyey سؤاشان which sentence uses the correct passive voice. يعني سؤاشان waxaa waay موضوعeeda passive voice. هذا سؤاشان جوابتها garan weeday waxaa u baahantay inaad soo raajiceyso passive voice. Okay, passive voice sidee loo sameeyaa؟ 3 تلاوضات جرا أو لو سميه passive voice. أول شيء وحكينا جملة simple present يعني جملة ما كتاي حالة simple present كأ. مثلا the letters are written by her. وحدها she writes the letters يعني أيضا وحي قرطاع رسالة ذها. So she writes the letters. waxa koobaad u baahantahay inaad samaysto marka rabtid inaad jumladan hadda inaad passive voice inaad ka dhigtid waxa koobaad waxaa waaye remove subject يعني qofka faacilka ka saar meesha. she waaye hadda faacilkeena meesha ka saarayna. okay hadda kadib object first waxa mafcuulka fiiga ah يعني waxa oo la qoray waxa oo la sameeyay horada keenaysa. so the letters waaye jumladena dhammaadkeeda the letters hore keenayna. hadda kadib to be verb to be aan ku daraynaa oo verb to be ga oo munaasibeeya aan keenayna. the letters يعني risaaladaha
رسالتها waxaa raacaya are. To be waxaa waay am, is, are. So are raacaysa. waxaa dhahnaa the letters are. hadda kadib by aan ku dareynaa iyo qofka sameeye who. By who yani by aan jumlada ku dareynaa iyo faacilka aan keenaynaa her. By her aan dhahaynaa. Okay, so waxay noqonaysaa the letters are written by her. Okay, su-aashan jawaabteeda waxaa waa labada jawaab bay noqon kartaa. Boring aan dhihi karnaa, tedious-na waan dhihi karnaa. Tedious. So boring iyo tedious labadooda waxay la macno tahay caajis, aad caajis u badan. So waxaa waaye masala, so jumladeena waxaa waaye the movie was so boring-na waan dhihi karnaa, tedious-na waan dhihi karnaa, that I almost fall asleep. يعني filimka aad buu caajis u lahaa xataa waan seexan rabay ee la macno tahay jumlada. So boring-na waan isticmaali karnaa, tedious-na waan isticmaali karnaa. Boring يعني caajis leh, tedious-na aad u caajis leh ee la macno tahay. jawaabta waxaa waaye enhance. Enhance يعني kor u qaad ee la macno tahay. To improve-na way la macno tahay. ina waxaas la wanaajiyo kor loo qaado ee la macno tahay. labada kelimadood waxay la macno tahay hoos u dhacid ee la macno tahay. Decline iyo deteriorate يعني hoos u dhacid ee la macno tahay labada kelimadood. Can you lend me some money يعني lacag ma ii deynin kartaa, deyn ma igu siini kartaa ee la macno tahay. waxaan dhahaynaa jawaabta waxaa waaye will pay يعني waan I will pay you back on Friday. waxaan kuu soo celin doonaa, waxaan kuu bixin doonaa lacagta mar kale goorma Friday, on Friday. So jawaabta waxaa waaye C, will pay. jawaabta waxaa waaye don't have to. I don't have to wear glasses. I still can see perfectly well. يعني aniga uma baahni inaan nadaarado xirno ukiyaalo xirto, aniga ilaa hadda si fiican waa u arkaa ee la macno tahay jumlada. يعني uma baahni meesheeda kaleta waxaa isticmaali karnaa don't have to. meesheeda waxaa isticmaali karnaa don't have to. jawaabta waxaa waaye must be. If she said that, haddii sidaas tiraahdo, it must be true. She never lies. يعني ayada weligeeda been ma sheegto. يعني أكيد يعني must aan dhahaynaa, must isticmaalaynaa, must be true aan dhahaynaa. So must waaye jawaabta. jawaabta waxaa waaye C, where iyo could loo isticmaalayaa. su-aasha sa fiirino, if we both rich we buy nice cars. If we both were rich we could buy nice cars. موضوعeeda su-aasha موضوعeeda waxaa waaye if clauses iyo second conditional waaye. هذا سؤال ku jawaabi weydo if clauses iyo second conditional fiiri oo soo shkare. if clauses second conditional waxaa loo isticmaalaa sida loo isticmaalo sidan waaye. if plus past tense plus would mise could iyo plus ficilka xaaladiisa koobaad saasaa loo isticmaalaa. ifna waxaa loo isticmaala inta ugu badan if yani waxaas hadaan ahaan wax markaa rabtid khayaaliga oo nan run ahayn markaa rabtid ka hadashid if aa la isticmaalaa welibana second conditional. so jawaabta waxaa waaye where iyo could. elimanata jumlada haddii aan labadeena ahaan lahayn dad lacag leh
aan lahaan lahayn yani khayaali waaye waxaan iibsan doonaa waxaan iibsan karnaa baabuur fiican elementaha jumladda jawaabta waxaa waaye to speak we are not allowed to speak Japanese in class not allowed you allowed inta ugu badan waxaa loo isticmaalaa to aa loo isticmaalaa to speak to aa lagu daraa ficilka iyo ficilka xaaladiisa koobaad aa loo isticmaalaa speaking waa qalad yani allowed speaking qalad ay noqonaysaa allowed to speak waaye sida saxda ah so allowed to iyo ficilka xaaladiisa koobaad jawaabta waxaa waaye so that su-aasha isa fiirino we arrived earlier so that we could sit in the first row yani anaka mar horaa imaanay si aan u fadhiisano safka koobaad elevenatahay jumladda so si aan u fadhiisano so that waaye so that a saxa for iyo so as to waa qalad Okay, su-aasha jawaabteeda waxaa waaye A. If she had known the consequences, she would have acted differently. She would have acted differently. Haddii ay ogaan lahayd cawaaqibka ka dhalan lahaa si kale ayay u dhaqmi lahayd elementaha jumladda. yacni labada jumladood waxaan ka hadlinaynaa wax past ah oo maadi ah oo dhaafay. So ifna waa isticmaalnay. So if clauses waaye su-aashan mawduuceeda if clauses haddaad su-aashan garan weyday if clauses seershigare oo baro insha allah so if iyo waqti maadi marka laga hadlayo oo maadi kalan laga hadlayo sida loo isticmaalo saan waaye ifaa keenaysa hadhow kadib past perfect plus would have plus past participle example ahaan if I had studied harder I would have passed the test hadaan si aad u shaqeyn lahaa u daakiri lahaa darsi u baran lahaa I would have passed the test waxaan ku najixi lahaa imtixaanka testiga elementahay jumladda so if clauses waaye welibana third conditional haddaad su-aashan garan weedo saas u seershigare oo baro insha allah mise videogay kale aan ii sharxi doonaa insha allah hadda su-aasha kale aan isla fiirino su-aasha jawaabteeda waxaa waaye A have been looking you haven't found have been looking you haven't found يعني سؤال استفيرنو I have been looking for my keys since yesterday but I haven't found them تنا ugu saxsan maxay sax u tahay aniga taniyo bir aniga يعني jumlada macnaheeda waxaa waa aniga taniyo shalay waxaan raadinayay miftaxyaasheeda I have been looking يعني present perfect continuous يعني إلى يعني شلون ورادني إلى هدنا ورادني يا إلى معناتها so حاستعمالنا I have been looking since yesterday but I haven't found them يعني أنا هدا مهلين إلى معناتها جملة ده so AY جواب تصحبه جوابته P was getting iyo went out. When I was getting out of the shower مكان كبحيي قبيسكا the lights went out.
dalalka ayaa baxay elementaha jumlada midda ugu saxsan waxaa waaye B. jawaabta waxaa waaye should have. We really enjoyed the movie. يعني أنا waa ku faraxnay waa ku tamatacnay waa ku baashaalnay filimka. You come with us. You should have come with us. waxay ahayd inaad nasoo raacdo markaa rabtid inaad tirahdid waxaad isticmaalaysaa should have. should have waxaa loo isticmaala markaa rabtid inaad tirahdid waxay ahayd inaad nasoo raacdid waxay ahayd inaad naga timaadid markaa yani should have waxaa loo isticmaala inta ugu badan waxa uu qofka dhaafay markaa rabtid inaad tirahdid should have la isticmaala should have ugu saxsan so should have waaye jawaabta. might have waxaa waaye waxay ahayd mumkin ahayd inaad raacdo ila manaata qalad waaye. must have na waxaa waaye qasab ahayd waxaa martay inaad qasabka must la isticmaala soo qasab ma ahayn laakiin waxay ahayd inaad nasoo raacdid markaa rabtid inaad tirahdid should have la isticmaala should have saxsan. jawaabta waxaa waaye B. by iyo on. I'm sorry I lost the documents. waan ka xumahay waxaan ilaaway waan ku xumahay waxaan waayay dokumentiyadii si xaadisa ahaan si aan u jeeda ahayn markaa tirahda accident waaye so waxaa dhahaysaa by accident I didn't do it on purpose. so accident inta ugu badan waxaa raacdaa by purposena ujeedadana waxaa raacda on purpose iyo by accident. so by accident iyo on purpose waaye jawaabteena. having my dress made by a local dressmaker. يعني aniga waxaan qof baa ii diyaarinaya qof baa fustaankayga ii diyaarinaya by a local dressmaker qof oo deegaan ah oo halkan jooga ayaa ii diyaarinaya dharkayga ila manatahay jumlada so midda ugu saxsan waxaa waaye having my dress made. su-aashan haddaad qalad ku jawaabtay waxaad u baahan tahay inaad soo baratid mowduuca oo ah causative. jawaabta waxaa waaye B. instead halkii meeshii so su-aasha isla fiirino for her birthday maalinta dhalashadeeda she hoped to get some money. waxay rajaysay inay hesho lacag ogaa lacag haddo kadib blank of a gift yani hediyad meesheeda waxay rajaynaysay waxay ku tamaneynaysay inay hesho lacag ila manataha jumlada so meesheeda kaleeta halkii meesheeda يعني waxaas meeshiisa markaas inaad tiraahdo waxaad isticmaalaysaa instead. despite qalad waaye waxay la macnaa inkastoo lama wado jumladan. in spite na sidoo kaleeta inkastoo ay la macnaa tahay so inkastoo jawaabta saxda ma aha so jawaabta saxda ugu saxsan waxaa waaye instead meesheedii halkeedii. jawaabta waxaa waaye C. tiring iyo exhausted. my new job is extremely tiring. I'm exhausted at the end of the day. shaqadayda cusub aad bay u daal badan tahay maalinta dhammaadkeeda aad baan u daalaa elemna tahay jumlada so tiring iyo exhausted isticmaalna jawaabta saxda tiring iyo exhausted.
su-aasha jawaabteeda waxaa waaye be used to working. su-aasha isla fiirino. A hard for me to get used to working operating system with new operating system. يعني way igu adag tahay inaan la qabsado nidaamka hawlqaalka. It will take me some time. waxay u qaadan doontaa waqti ilimana tahay. So يعني waxaan la qabsan doonaa marka rabtid inaad tirahdid waxaa isticmaalaysaa get used to iyo ficilka waxaa lagu darayaa ing. Be used to working يعني be used to inta badan waxaa loo isticmaalaa waxa aad u baratay, laakiin hadda wuxuu leeyahay aniga waxaa rabaa inaan u barto weli waqti ay u qaadan doontaa weli uma baran u leeyahay. So waxaa dhahaysaa get used to saxsan. So be used to qalad waaye. Be used to yani waxaad u baratay oo taqaanid waaye. Used to workna waa qalad. Work ing kuma darin, so mafruud ing ku dari ahead. So midda ugu saxsan waxaa waaye get used to working. su-aashan haddaad qalad ku jawaabtay, ani mawduucan video ku saabsan darsi ku saabsan waan soo diyaariyey video ahaan. channelka ayaa ka fiirsan kartiin, waad baran doontiin. check out, fiiriya. jawaabta waxaa waaye would be iyo told. They would be stupid if they told him about their secret. doqon bay noqonayaan hadday sheegaan sirtooda elementaha jumlada. So jawaabteena waxaa waaye would be iyo told. jawaabta waxaa waaye not only did he forget his keys but he also missed the train. يعني kaliya ma ilaawin furayaashiisa, sidoo kale wuxuu seegay tareenka elementaha jumlada. So midda ugu saxsan waxaa waaye not only did he forget his keys but he also missed the train. So not only did plus subject plus subject plus verb xaaladiisa koobaad loo isticmaala inta ugu badan. So not only did plus subject plus ficilka xaaladiisa koobaad. waxaa waaye be unequivocal. su-aasha isla fiirino. Her explanation left no room for doubt. يعني أيضا sidii u sharaxday aniga iguma jiro khalaas, يعني iguma jiro shaki elementaha jumlada. يعني wax si waadax u sharaxday oo shaki ima gelin elementaha jumlada. So waxa waadaxa oo shaki ku jirin waxaa isticmaali karnaa unequivocal. quivicalna waxaa wax oo shaki badan ah oo la fahmeynin, quivical waaye. sidoo kale vaguena waxaa waxa oo la fahmin oo waadaxa aan ahayn oo caddeen, vague la dhahaa. iyo sidoo kale quivical iyo vague waxaa waxa oonan la fahmeynin oo aan waadax ahayn. waxa waadaxa ah oo shakiga ku jirin unequivocal isticmaali karnaa. jawaabta waxaa waaye be spurn. يعني waxa la diido spurn waaye. spurn aan dhihi karnaa. reject meeshada kaleeta spurn isticmaali karnaa. jawaabta waxaa waaye a the reason why they did it. the reason why they did it. sababta ay sidaas u sameeyeen waaye. So jumlada isla fiirino. sababta ay sidaas u sameeyeen inay ilaaliyaan qoyskooda. sababta ay sidaas u sameeyeen inay ilaaliyaan qoyskooda. يعني jawaabta tana ugu saxsan. The reason why they did it. يعني sababta ay sidaas u sameeyeen waxaa waaye is to protect their family. Because they did it. because marka la isticmaali because inta ugu badan jumlada dhexdeeda lagu isticmaalaa.
because lagama bilaabo jumladda. Because jumla kuma bilaabmato, so midda ugu saxsan waxaa waaye A. jawaabta waxaa waaye ambiguous. su-aasha waxay weydiiyeen yani waxay dhaheen hadalka oo maamulaha wuxuu ahaa hadal oo aan caddayn, unclear and indirect. dad maamulaha ka shaqeeya yaa maamulka saasuu yiri hadal saas oo caddayn uu sheegay oo dadka ka shaqeeya halkaas inta u badan waxay arkeen inuu hadalkiis yahay hadal aan muuqneen. meesha kaleeto ereyga isticmaali karna waxaa waaye ambiguous, yani hadal oo la fahmeen waaye elemana tahay. so jawaabta waxaa waaye B. jawaabta waxaa waaye have I seen. sababta ay tahayna waxaa waaye jumladda wuxuu ka bilaabmay rarely, yani jumladaha rarely ku bilaabmaan mise never mise seldom, hardly, yani jumlada markasaas ku bilaabmato inversion wax la yiraahdo mawduuca inversionka la sameeyaa. so rarely, have iyo subject iyo past participle saasa loo shaqeeyaa jumladda. so jawaabta waxaa waaye have I seen. jawaabta waxaa waaye would have been. had she been informed earlier, she would have been in a position to prevent the misunderstanding. sidoo kale su-aashan waxaa laga weydiiyey waxaa waaye mawduuceeda third conditional. so third conditional natiijada would have iyo ficilka xaaladda saddexaada loo isticmaalaa. jawaabta waxaa waaye which was founded in 1431. laba dhibcna waa loo sameynayaa marka wax la qeexinayo waxaas ah oo sidaas markaas waqtigaas la asaasay. marka waxa la qeexinayo la carifinayo la sheegayo laba dhibca oo faasila waa loo dhigaa jumladda bidaayadeeda iyo dhammaadkeeda. so B waaye jawaabta saxda ah. jawaabta waxaa waaye protect, yani and kadib wax kalena ma la sheego, waxaa la sheegaa waxa ficilka bas. so jawaabta waxaa waaye A, protect. jawaabta waxaa waaye B, I'm having my car fixed. yani aniga gaarigeyga alii sameyn doonaa waqtigaas. so kuma qaadi karo elementa jumladda. so midda ugu saxsan I'm having my car fixed, yani qof baa ii sameynaya having aan dhahnay. haddaan aniga sameysanayo gaarigeyga I'm fixing my car, laakiin asaga wuxuu yiri waqtigaas kuma qaadi karo oo mashquul baan ahay. so waqtigaas gaarigeyga sameysan doonaa. so midda ugu saxsan waxaa waaye B, I'm having my car fixed. jawaabta saxda waxaa waaye although, yani wuxuu yiri dawayaashan waa dawayaasha waqtigan ugu fiican aan heli karo. although they are expensive unfortunately, yani wuxuu yiri maca dhalik although aan isticmaali karnaa maca dhalik yani waa sidaas waa dawayaasha ugu fiican hadda heli karo, laakiin maca dhalik waa dawayaal qaaliya markaad inaad tiraahdid. so waxaa ku xiri kartaa jumlada labada jumlaha isku xiri karnaa although waan dhihi karnaa. so although ugu saxsan. because you saw waa qalad, because sabab ma sheegin laakiin
وشيء يعني ساسي ساس مع ذلكنا وسيداس. so لوذا جملة حنكو حرينا although وسحسن. جوابت الصحدة وحاوى in addition إيه معناتها هاي أنت وحادير in addition وحيل معناتها أنت وحادير لaba shay يعني labada jumladood wuxuu sheegayaa wax fiican uu sheegayaa wuxuu leeyahay luqadaha in la barto waa wax faa'iido leh muhiima wuxuu ku saacidayaa inaad culture-yaasha kale inaad barato waxaas dheer hadda kadib saas u fiican yahayna so midda ugu saxsan waxaa waaye in addition. جوابت الصحدة وحاوي unfortunately يعني نصيب ضرو إلى معناتها هاي نصيب ضرو أني ما أذكره كونفرنسكا so مدة وصح صح وحاوي be unfortunately. جوابت الصحدة وحاوي personally إلى معناتها شخصي أهان I think يعني شخصي أهان ساسا كفكرية so personally أكو صحصن. فيديونا intaas ahaa waxaan rajeynaa faa'iido ka hesheen please like subscribe ka hayga ilaawina comment kana ra'yiina ii soo qora iyo waxa ii soo qortiin heerka aad tihiin imsa jawaaba ka jawaabteen oo sax ah imsa jawaaba qalad niga noqday please ii soo qoro insha Allah darsi kale isku arki doonaa is arag dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh see you bye bye.